Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Qof walba oo daawanaya casharkan aad baan u salaamayaa. Koorsadan aan baranayno waxaa la yidhahdaa Computerized Accounting, qaabka kombuyuutarka wax loogu xisaabiyo. Waxaan rabaa inta aan koorsada u gudagelin oo aanan programmiska saddexda oo QuickBooks, Big 3 iyo dhaagiisa ayaan baran doonaa. Intaana saddexdooda u gudagelin waxaan rabaa manualkii lagu shaqay jiray berigii hore oo la isticmaali jiray inaan hal mar xoogaa wax yar soo revision gareeyo. Qof walba oo raba inuu saddexda program aad u barto kuna shaqeeyo ayuu hordhacan uu muhiim yahay. Marka waxaan codsanayaa qof walba ama soo aqoon Computerized Accounting hore u soo baro ama hadda maanta koorsadan kuwa ku ahaato. Waxaan rabaa hordhacan inaad si fiican u dhageysato. Waxayna anfici doonaan markii aan xisaabaadka xirayno ee aad ay noo anfici doonaan manualka. Badanaa qofka markuu sharciyada iyo waxyaabaha accounting uu fahansan yahay hadhowtii kombuyuutarka inuu wax ku xisaabiyana aad bay u sahlanaanay insha Allah. Marka koorsada kuma dheeraad doono oo weliba qaybta hordhaca ah waa soo koobi doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan. Marka waxaan rabaa waqti yar inaad siiso oo aad daawatid hordhacaas haddii uu Alla idmo. Waan bilaabaynaa marka qaybta koowaad oo introduction-ka ah. Waxa la yiraahdo accounting in action ayaan gelaynaa. Accountiga gacanta laga qabanayo oo lagu shaqeynayo. Marka waxaan isla fahmaynaa horta maxaa la yiraahdaa accounting maxaa la yiraahdaa. What is accounting? Accounting maxaa la yiraahdaa in wax la xisaabiyo. Accounting dhowr tacbiir laga bixi karaa, dhowr dhinac laga eegi karaa. Waad ogtiin wax walba marka la qeexayo dhowr meelood laga fiiri karaa. Marka tacbiirka ugu wanaagsan oo accounting aan ku qeexi karno waxa waaye accounting is the business language waa luqadda ganacsiga lagu hadlo. Accounting haddii la weydiiyo maxaa leedahay waa luqadda ganacsiga lagu hadlo. Intaas nooga filanba, that is enough. Sababta wax walba oo la sameynayo xisaab walba meesha ay maraydo wax walba la diiwaan galayo accounting waa xisaabin oo businesska la xiriir. Marka is the business language lagu soo koobaa accounting waxaa la yiraahdaa luqadda ganacsiga lagu hadlo. What is the purpose of accounting? Waa maxay ujeedka wax loo xisaabiyo horta maxay tahay? In wax la xisaabiyo xigmadda ku jirta maxay tahay? Marka waxaan leenahay saddexdan shay aan ku soo koobaynaa. Purpose of accounting is to identify, record and communicate the economic events of an organization. Waxaa la yiraahdaa identify in la qeexo oo la ogaado, record lana diiwaan geliyo, communicate lana gudbiyo the economic events dhacdooyinka dhaqaale la xiriira of an organization oo shirkaddu ay leedahay ama markaas ururka uu leeyahay. Loona soo gudbiyo interested users dadka ay qusayda markaas. Accounting dhalinyaro ujeedada dhan oo laga leeyahay waxa waaye in la aqoonsado horta wixii markaas waxay yihiin waxa dukaanka ka baxay ama soo galay in la aqoonsado dabadeedna kasii dibna aan dhahe la diiwaan geliyo oo recording lagu sameeyo markii wixii la ogaado oo la yiraahdo shay hebel baxay ama shay hebel soo galay waa identifying in la qeexo waa shay horta uu yahay magaciisa. kadibna maxaa la rabaa record in la diiwaan geliyo wixii oo la qoro. kadibna ugu dambeys maxaa la rabaa in report laga diyaariyo, communicate laga sameeyo. weliba waxa intaas lagu sameynayo oo la ogaanayo waxay yihiin la diiwaan galayo lana gudbinayo waxa waaye dhacdooyinka dhaqaalaha la xiriira oo ay shirkaddu markaas leedahay. ugu dambeysna marka waxaa la rabaa wixii oo diyaarsan oo nidaamsan in dadka ay qusaydo sida managerskii oo kale macna hawshii dadka iska lahaa shirkadda oo kale in loo soo gudbiyaa la rabaa. Marka haddii la weydiiyo waa maxay sababta wax loo xisaabayo waxa waaye in la kala ogaado ayna diiwaan gashan yihiin dhacdooyinka dhaqaale oo dhacay oo shirkaddu leedahay. Intaas ku soo koobi waana wax easy oo qof walba fahmi karo. Intaas inaad fahanteen aan rajeynaa ujeedka waxaan u xisaabinaynaa ama wax loo xisaabiyo. Waxaa jira marka 3 activities oo dhaca, 3 dhacdo ama 3 hawl oo inta accounting ku jirto aad sameynaydaa jiraan
oo lagaa rabo waxa la yiraahdo identification inaa wixii la analyze gareeyo horta waana business oo dhan waay identification alla wixii in la analyze gareeyo la fiiriyo maxaa laga wadaa identification kaas fiiri select economic events in la doorto qof horta oo waxa uu gadanayo inuu cadeeyo ayaa la rabaa koow waxaa kaloo la rabaa waxaas markii qofkii transactions oo dhaco oo dhacdadii ay dhacdo oo qofkii wuxuu la wareego maxaa la rabaa wax la yiraahdo recording aan rabaa in wax la diiwaan geliyo recordku maxay isugu jirtaa record classify and summarize la rabaa marka wax diiwaan gelida iska diiwaan geli lama rabo wixii waxaa la rabaa inay kala saaran yihiin inay haddana soo koobaynaan qof hebel shayga qaatay waxaa soo qaatay la dhihi maayo qaab waxaa jira luqad waa naga dhahayna aqoonta waa luqad gooniya qaab wixii loo xisaabinayo loona soo koobay jiraan ku si dheeraamayno communication ala marka ugu dambeys in la diyaariyo accounting reports ala wixii maadaama la soo diiwaan galaayo wixii transaction soo dhacay wixii dhacdo soo dhacay dukaan kula waxaa la rabaa in reporting la sameeyo oo wixii la soo bandhigi karaa meesha ugu hooseeya fiiri shaqooyinka accounting waxaa ka mid ah wax la yiraahdo bookkeeping function wax walbo dhacay in la diiwaan geliyo warkan waxa waaye war aan soo koobay oo dhowr ciwaanaha oo kala duwanahay haddana aan rabo inaa business koorta waxyaabaha laga rabo inaad ku fahanto aan tala galo business loo baxaa laga rabaa transaction walbo dhacay in recording ku sameeyaan recordku wuxuu isku jiraa record classify iyo summarize kadibna communication in la sameeyo wixii la soo koobo report laga diyaariyo waxyaabaha kale laga rabo oo processka accounting waxa kamid ah shaqo la yiraahdo bookkeeping function wax walbo dhacay in la diiwaan geliyo waliba qofka accounting aad shaqadaas ugu sayda taas marka waa un concept guud oo la rabo inaad activities ka dhaca inaad wax ka fahanto marka businesska lagu jiro waxaan rabaa inaad qaybtan ila fahanto waxa la yiraahdaa forms of business ownership hababka businesska loo wada yeeshaa la yiraahdaa saddex qaab ay noqonayaan proprietorship partnership cooperation saddexdaas ay noqonayaan proprietorship midka ugu horeeya waxaan leenahay waa business oo leeyahay hal qof generally owned by one person hal qof iskala ganacsigaas hadduu faa'iido keeno asagu faa'iidadu keenay hadduu khasaare keenana asaga khasaare business walbo jiro oo hal qof uu leeyahay hal shakhsi leeyahay proprietorship la leeyahay yani markaan waxaan wuxuu ka anfici doonaa marka uu xisaabinaydo qaababka dhowtii lacagaha qaybintooda iyo waxyaabahaas oo aad noo quseeya marka inaad si kala fahanno waa muhiim waxaa jira qaab la yiraahdo partnership owned by two or more person waxa iska leh laba qof iyo wax ka badan wax badan dad si badan ma saddex meelahaas amal saddex qof laba qof business ay leeyihiin waxa la yiraahdaa partnership la yiraahdo ayagana faa'iidadooda iyo khasaaradooda mar walba agreementiga u jiray ku xiran tahay say uu soo heshiiyeen marka wuxuu qaybinayaa dhowtii sida uu soo heshiiyeen ku xiran tahay dhalinyaro waxaa jira cooperation business la yiraahdo iskaashato ownership marka lahaanshaha businesskaas divided into waxa loo qaybinaa shares of stock shareera loo qaybinaa saami wax la yiraahdo qof walba intuu saamigiisu leeyahay ayaa dhowtii ugu dhifo doonta marka wax qaybinayna waa arkayna marka saddexdaas hab ganacsi walbo jira ayuu saddexdaas form ku noqonaa ama hal qof iska leh ama laba qof iyo wax lamida ama dad badan wada laho waa shirkad weyn oo iskaashata ah oo qofka lahaanshadiisa intuu faa'iidayo ama intuu khasaarayo hadhowtii intuu gashaday loogu dhifanayo okay waa kasi gudbinaa qaybtaas inay la fahantaan rajeenaa